Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxay dhaheen libaaxa waxaa dili kara oo keliya libaax kale sababtoo ah xooggiisa iyo caqligiisa badan awgeed iyo inuu yahay boqorka duurjoogta. Laakiin boqorka duurjoogta ayaa mararka qaar loo xoog sheegan karaa ama la dili karaa. Muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xayawaanaad iska difaaci kara ama xitaa dili kara libaaxa. Janalka aad daawanayso waa Burqad Janal. Soo jeediyaha barnaamijku waa aniga ah Cabdinaasir Cilmi Cabdi. haddii ay tahay markii ugu horeysay ee soo booqata janalka ama aadan weli subscribe saarin fadlan subscribe saar hadda muuqaalka hesha like saar lana wadaag asxaabtaada adigoo ugu shargaraynaya baraha bulshada. Bounce. Geriga wuxuu si dhib ah u dili karaa libaaxa. Xayawaanka lagu hayo qoorta dheer leh ana xayawaanka dunida ugu dheer kaasoo dhererkiisu gaarayo 5 mitir iyo bar ayaa wuxuu iska difaacin karaa ama dilin karaa libaaxa. Geriga lugihiisa oo kaliya ayaa waxay ka dheer yihiin dad badan. Geesihiisa wuxuu u adeegsadaa inuu isaga celiyo geriga kale. Geriga labka ayaa culeyskiisu wuxuu gaarayaa 1200 oo kilogram kaasoo 4 mar ka culus culeyska libaaxa. Lugihiisa xoog badan ayuu u isticmaalaa sidoo isaga difaaco libaaxa taasoo ugu dambeyn u sababi karta libaaxa inuu dilo. Bal fiiri muuqaalkan. Geri dhadig ah oo dilaysa libaax isku dayay inuu cuno cunugeeda yar. Bounce. Lo'kinsiga. Libaax wuxuu caan ku yahay ugaarsiga lo'kinsiga balse hal libaax oo ku guuleystay ugaarsiga lo'kinsiga weli lama sheegin. Lo'kinsiga waxaa loo tixgeliyaa inay aad uga adag tahay libaaxa. oo waxaa dhacda mararka qaar in libaaxyo dhowr ah ay isku dayaan inay dilaan lo'kinsi kuna guuldareystaan iyo in hal libaax uusan weerari karin hal lo'kinsi ah marka laga reebo lo'kinsiga kuwooda yaryar. haddii libaaxyadu is abaabulaan oo soo weeraraan koox lo'kinsi ah libaaxyadu waa inay fojignaadaan maxaa yeelay lo'kinsiga wuu xanaaq dhow yahay. haddii uu xanaaqana wuxuu sameynayaa wax kasta oo isku difaacin karo. fiiri muuqaalkan lo'kinsi weeraraya libaax kaasoo geesihiisa cirka ugu tuuraya. Bounce. Dhurwaaga badanaa ma dhacdo laakiin dhurwaaga wuxuu dili karaa libaaxa. laakiin sidee awoodda ilkaha dhurwaaga markii loo barbar dhigo libaaxa? awoodda qaniyada dhurwaaga ayaa waxay gaaraysaa 1100 psi halka awoodda qaniyada libaaxa ay iyana gaarayso 650 taasoo macnaheedu tahay in awoodda qaniyada dhurwaaga ay laba jibaar ka weyn tahay tan libaaxa. Libaaxa xitaa ma awoodo inuu u soo dhawaado xayawaanka ay cunayaan dhurwaayadu. bal fiiri muuqaalkan waxaa isqabtay hal libaax iyo 20 dhurwaa. waxaa shaki ku jiray si noolaanshaha libaaxa laakiin nasiib wanaag saaxiib kale ayaa u soo muuqday libaaxi taasoo sababtay in dhurwaayadu kala cararaan. Bounce. wiisha caadi ahaan wiishu waxay ugaarsataa libaaxa halka libaaxan oo ugaarsado wiisha midooda waaweyn. waxaa la sheegaa in libaaxu dili karo wiisha kuweeda tabarta daran ama kuwa duqowshaha oo keliya halka wiisha yaryar ama mideeda dhalinyarada ahi ay bartilmaameedkeedu koowaad u yahay libaaxa. culeyska wiisha ayaa wuxuu gaarayaa 2300 oo kilogram kaasoo 10 mar ka weyn culeyska libaaxa. wiisha sidoo kale waxay leedahay maqaar adag geeso dhaadheer kuwaas ay ku weerari karto cid kasta. sidaa awgeed wiishu waxay dili kartaa libaaxa walow aysan ku orod dhammayn oo xawaaraha wiisha ayaa wuxuu gaarayaa 50 ilaa 55 kilomitir saacadiiba halka xawaaraha libaaxu uu gaarayo 80 kilomitir saacadiiba. xitaa miroodiga ayaa mararka qaar ka cabsada oo ka carara wiisha. haddii libaaxyadu ay ku jiraan xaalad ijtimaac wuxuu joojiyaa hawsha kana cararaa meesha sababtoo ah waxay og yihiin in hal herti ay wiisha ku dhifto ay ku weyn karaan noloshooda oo idil. Bounce. jeerta waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah xayawaanada ugu halista badan qaaradda Afrika iyo caalamkaba. sida muuqaalkii hore aan ku soo sheegnay jeertu qiyaastii 500 oo qof ay dishaa sanad walba.
jeerta waa xayawaan cajiib ah kamana xishoodo inuu la dagaalamo cid kasta xitaa libaaxa. Hal libaax wuu ka cabsanayaa hal jeer. jeertu waxay leedahay af saa'id uga weyn kan libaaxa. afkeedu waxay kala furi kartaa 150 ilaa 180 digrii iyo 50 sentimitir, halka libaaxa afkiisu kala furi karo 28 sentimitir oo kaliya. si kastaba ha ahaatee, awoodda qaniyada jeerta waxay gaaraysaa 2000 oo psi, halka awoodda qaniyada libaaxa ay gaarayso 650 psi oo kaliya. jeertu waxay u baahan tahay in hal qaniyo kala hesho madaxa libaaxa, kaasoo quusin doonta libaaxa. jeerta waxay leedahay xawaare dhan 48 kiiloomitir saacadiiba. Bounds. maroodiga. marka libaaxa uu ugaarsanayo maroodiga wuxuu bartilmaameedsadaa maroodiyaashkooda yaryar ama kuwooda dhadiga ah, mar walbana gadaal ayuu kasoo weeraraa. maroodiga waa nasliga ugu xooga badan iyo sidoo kale xayawaan dhuleedka ugu xooga badan dunida. maroodiga Afrika culeyskiisu wuxuu gaarayaa 6000 oo kiiloogaram, waana kuwo xoog badan. waxay qaadi karaan laba laabka culeyskooda. maroodigan ayaa badanaa xawaarihiisu uu gaarayaa 25 kiiloomitir saacadiiba. qayb yar oo maroodiga Afrika ah ayaa leh xawaare gaaraya 40 kiiloomitir saacadiiba. haddaba waxaa dhacda xaalado naadir ah oo uu libaaxu maroodiga dilo, markaasoo tirada libaaxyada ay gaarayso ilaa ay 30. libaaxyada yaryar iskuma dayaan ugaarsiga maroodiga. hal libaax ayaa ka xanaajin kara maroodiga. taasi waa sababta ay markay arkaan maroodiga iska fiiriyaan masaafada u dhaxaysa ayaga iyo maroodiga si ay uga cararaan. Bounds. shabeelka. shabeelka iyo libaaxa waa bisadaha ugu waaweyn dunida uguna xoog badan. haddaan isbarbar dhigno labadan xayawaan, shabeelka waa mid dagaal badan oo hadduu dagaal qaado ay adagta inuu soo yeelo guuldarro. inkastoo libaaxu xoog badan yahay, shabeelka ayaa misan kasii xoog badan, ka murqa weyn, ka caqli badan, kana firfircoon. balse shabeelka keli ayuu u socdaa badanaa, halka libaaxa uu koox isla socdo. marka isbarbar dhigno awoodda qaniyada libaaxa iyo shabeelka, libaaxa wuxuu leeyahay awood qaniyo oo gaaraysa 650 psi, halka awoodda qaniyada shabeelka ay tahay 1050 psi. muuqaalkeeni intaas ayuu ku egyahay. intaan muuqaalkan isugu imaan doono waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.